halkan magaalada Berbera hawlaha u timid xig dhinaca murmaalka cabanaya maxaad ka qabatay aad ma hadsan tahay suxufi marka ugu horeysa bini'aadamku cabasho ma waayo mar walba waa kii cabanaya hase yeeshee waxbay ka horeeyaan waxaan u imi murmaalka cabashadiisii waqti horena waan imi oo ogtahay maaha markii koobaad aan imaado inta aan maqanahayna guud ahaan wasaaradda iyo gudoomiyaha gobolkan aad ugu amaanayo runtii waxay ka qabteen wax fara badan ama mar walba shaqo routine oo taagan bay ka qabtaan marka taa laga yimaado hawshii aan u imi waan ku guda jiraa dhamaystirkeediina waxaan jecelahay waqti dhow inaan idin la wadaago ka hor dhici maayo waxaan jecelahay gabagabada inaynu wada joogni doono tan waxaynu u nimi farxad kaloo gaara aad baad mahadsantahay hal su'aal uun waa xor baad u tahay toban baad ka dhigan kartaa waxa tii hore gacanta ku haysay mid kale ayaa idin ka daba timid wiigi u dambeysay darwalintii iyo baraytaradii ka shaqaynayay garoonka diyaaradaha ee magaalada Berbera oo shirkad gacanta ku haysay gaadhi walba inta laga dejiyay ninkii muwaadinka in ajnabi la saaray maxaad arrinka dacwadeeda ku soo gaadhay ka qabatay walaal aad baad u mahadsan tahay runtii waa arrin u baahan inay bulshadaydu ogaato inaanu ognahay oo aanu la soconno na ay lagama maarmaan tahay inaad naga tabisaan oo bulshada gaarsiisaan anigoo kaaga mahad celinaya su'aasha waxay soo gaadhay shalay subax arooriyadii intaanan ka soo bixin magaala madaxda Hargeysa ayuu riboodkaasi ii yimi isla markiiba waxaanu ka wada kulannay gudoomiyaha iyo suuwaha wasaaradda khayr iyo xasanaad Allah siiyo gudoomiyuhu isagoo gacanta ku haya hawshii ayaanu imi iminka waqtigan aanu gobolka ka soo baxnay ayaanu wakiilkii shirkadda aanu wada joognay oo aanu ku soo kala baxnay shaqaalihii qaybna waa lagu celiyay shaqadoodii qaybtii kalena iyagiiba hadda la raadinayo magaalada iska galay waxaanu rajaynaynaa qofkii aanay shirkadu ka qaban ee iyaga aanay wax dhibaato laga soo sheegin aan dambi gelin in shaqadiisii uu sidii ugu